السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومركل أي مقال عصب اسكو نقش وناكسن waxaan ku rajeynayaa waqti walba aad ku sugan tahay inuu ku wanaagsan yahay aan soo dhow inta aynan muuqaalka uga dagalin fadlan subscribe sar channelka hadii markii ugu horeysay tahay oo madashani soo booqato sidoo kale like sar si dad fara badan markaasi u soo gaadha saaf fara badan ay uga faa'iideysato sidoo kale page-keena Facebook follow iyo like sawka sidaad mar walba la socoto markaasi muuqaalada cusub ee aanu halkan ku soo gudbino mawduuceena maanta waxa markaasi oo ku saabsan yahay oo aynu ku faaqidin doonaa iskula fiirin doonaa waxna markaasi aynu ka kala faa'iideysan doonaa dhinaca iyo teknolojiyada iyo waxyaabahan casriga ee qof walba markaasi u baahan yahay inuu ka faa'iideysto waqtigiisana markaasi oo ku bixiyo waxaanu muuqaalkan iskula eegi doonaa laba barnaamij ayaan iskula eegi doonaa oo faa'iido weyn u leh qof kasta oo markaa wax sameeya wax ururiya ama markaasi content creator ah hadii markaasi xataa noqoto shirkadaha ganacsiyada ama qof kasta oo markaasi doonaya in xogtiisa ama datadiisa aysan ka lumin hadii tusaale ahaan aad isticmaasho computer hadii aad isticmaasho waxa dhici karta computerku in uu ka halaabo sababtoo ah computerku waa physical weeyaan oo wax lumi kara xumaan kara markaasi la xadi karo ama wax kale ay ku dhici karaan datada kugu jirtana sida aad ku way karto markaasi ay wax kaga dhacaan sidoo kale teleefankaagu isaguna waa la mid oo hadii uu ka lumo ama laga xado ama ka xumaado ama wax ku dhacaan datada kugu jirta waa aad way kartaa hadaba waxaa jira siyaabo fara badan oo datada loo protect gareeyo ama markaasi loo save gareysto meel markaasi xogteeda aad ku urursatana loo sameesto waxaa jira cloud storage ama in internetka dhexdiisa aad wax ku kaydsato inta badanna waxa isticmaala dadka datada ama xogta ama waxyaabahaasi ururiya fileskooduna ay aad u tira badan yihiin shirkadaha ganacsiyada waaweyn iyo waxyaabahaas oo idil hadaba bal muuqaalkan waxa aan kugula wadaagaya laba barnaamij oo hadii aad adeegsato ama laba application ama laba software aan ku raado hadii aad adeegsato ka caawinaya in xog dambe aysan ka lumin waxa ugu soo horeeya horta laba ayaan kugu kala qaadaya mid waxa uu ku kaydinayaa wixii qoraal oo idil nooc kasta ha noqdo waad ku kayd garanaysaa kadibna sanooyin aad u tira badan ayaad haysanaysaa xogta midna waxa uu ku kaydinayaa muuqaalada sawirada audioska dhamaan waxa soo idil iyo documents kasta oo markaasi aad u baahan tahay inaysan ka lumin ayaa uu ku kaydinaya hadaba balka koobaad aynu soo qaadano barnaamijka koobaadi waxa uu yahay Google Keep ayaa la yiraahdaa barnaamijkan yari waa barnaamij aan aad u sii weyneyn computerkana waa ku shaqeeyaa sidoo kale mobilkana waa ku shaqeeyaa waxaad ku kaydin kartaa xog kasta oo qoraal ah oo aad rabto in aysan ka lumin xataa sawirada waa ku qaadi karaa inta Google Keep aad isticmaalayso kaliya waxa uu kaaga baahan yahay in aad geliso gmailkaaga aad furihiisa ilaashato tusaalahan kaba soo qaad xog fara badan ayaad rabtaa inaad qorto sida imika tusaalahan waxa uu aad ugu fiican yahay oo aad iyo aad ugu baahan dadka wax qora ama wax uriya abwaanada qoraayada maxaan ku dhahday wariyeesha saxafiyiinta dhamaan waxay u baahin barnaamijkan sababtoo ah qoraal kasta oo geliso waa ku kaydinaya kaliya gmailkaaga ayuu kugu jiraya hadii aad telefoonka bedesho hadii aad computerka bedesho hadii aad goob kala tagto hadii aad wadan kale u dhoofto kaliya online ayaad galaysaa gmailkaaga ayaad gelinaysaa kadibna xogtii si fudud ayaa aad ku helaysaa sidoo kale waxa uu ka saacidayaa in markaasi markasta oo aad u baahato in wax aad qorto halkii aad ka soo qaadan lahayd qalin iyo waraaq in aad saga ku qorato imika aniga ahaan barnaamijkan waxaan isticmaalayaa muddo 4 sano gaadhaysa ayaan isticmaalayaa waxa aan ku kaydiyay qoraallo ka badan 1000 kor u dhaafay ama dhowr kun aan iraahdo gaadhaya ayaa igu kaydsan intaas oo dhan waxbaan ku qoriyay waxbaan gashanayay xataa intaas oo dhan aniga intaas oo telefoon bedelay haddana xogtii ma aysan lumin oo ilaa hadda waa ay kaydsan tahay barnaamijkani aad iyo aad ayuu ka caawinaya xog kasta oo qoraal loo rabto inaad kaydiso waa uu ku kaydinaya inkastoo ay jiraan noocyo kale ama barnaamijyo kale oo iyagana wax lagu kaydiyo balse laakiin barnaamijkan aad ayaa aan kugula talinaya aad iyo aad buu ku anfacaya hadii aad rabto inaad xog qoraal kaydiso halkaan soo dhaafay isagana barnaamijka labaad ayaa ina soo gudbina barnaamijka labaad waxa la yiraahdaa ama applicationka labaad waxa la yiraahdaa OneDrive waxa iskale shirkadda Microsoft sidoo kale ka hor aynu ka soo hadalnay isagana waxa iskale shirkadda Google barnaamijkan OneDrive waxa iskale shirkadda Microsoft waa barnaamij cloud storage ah barnaamijkan cloud storage-ka waxa uu ku kaydinayaa wax kasta oo aad u baahato muuqaal hadhiin sawir hadhiin codad hadhiin documents hadhiin wax kasta oo aad u baahan tahay ayaa uu ku kaydinaya
kaliya internet ayuu kaaga baahanaya. Haddaba qaabka loogu kaydsado aan wax yar kaaga taataabto. Barnaamijkan OneDrive waxa uu leeyahay automatic backup ayuu leeyahay. Computerkaaga waad ku xidhanaysaa, automatic backup ayaad gelinaysaa, kadibna xog kasta oo aad save garayso ama xog kasta oo computerkaaga soo gasha si automatic ah ayuu cloud-ka kugu geynaya. Kadibna haddii computerkaaga uu xumaado ama uu cilad gasho ama laga xado ama uu ka lumo, si online ah ayaad u gelaysaa cloud storage-kaaga, kadibna xog kasta oo halkaad gelisay si fudud aad ku helaysaa. Maad meel kasta joogtid, qaarad kasta oo aad joogto si fudud ayaad xogtaada ku helaysaa. Sidoo kale telefoonka haddii aad isticmaalayso automatic backup ayuu leeyahay oo waxa aad ku xidhanaysaa mobilkaaga xog kasta oo mobilkaaga soo gashana si automatically ayaa kugu backup garaynaya. Si kastoo telefoonka isaga bedesho ama ka xumaado ama ka lumana online ahaan ayaad u gelaysaa, kadibna si markaasi degdeg ah ayaad u helaysaa xogtaadii. Haddaba haddii aad rabto in computerkaaga xogta ku jirta aysan ka lumin, sababtoo ah waa protected weeyaan, waxa weeyaan waa taxadar aad u weyn. sababtoo computerku waa xumaan karo, waa physical, cilad kasta ayaa ku dhici karta. imika dad fara badan waxaan arkaa leh disk drive-kii baa naga xumaaday, intaasoo data iga luntay, waxyaabahaas oo idil akhrinay. balse laakiin haddii aad isticmaasho cloud storage-ka wax badan ayuu kaa caawinayaa. xog dambe oo si fudud kaaga luntana ka caaban maysid ama dhibaato kuma keeni doonto. barnaamijkan OneDrive waxa uu leeyahay qayb free iyo qayb lacag la bixinayo. qaybta free-ga ah storage-giisu waa iska yaryahay oo 5 GB wax ka badan kuma siinayaan. balse laakiin waxaa jira storage ama plans aad u badan oo ay iibiyaan, markaasi lacag yar oo iska jabanna aad bixin karto. tusaale ahaan haddii aan ku idhaahdo 100 GB haddii aad ka iibsato, 100 GB ayaa ugu hooseeya, 100 GB haddii ka iibsato waxaa laga iibinaya lacag $2 gaadhaysa bishii, $2 bishii gaadhaysa. sidoo kale 1 terabyte adeed ka iibsato lacag $7 ayaad bishii bixinaysaa. waxaa intaas oo dhan kula socda markaa in office-ka barnaamijka office-ka la yiraahdo inaad access garayso oo dhammaan barnaamijyada si fudud aad ugu isticmaasho, features-ka ugu dambeeyana aad isticmaasho si xalaal aad u isticmaalaysa. inta badan dadku waxay isticmaalaan cracked ama qaar si isticmaalin loo soo saaray ay isticmaalaan. balse laakiin haddii aad awoodo inaad $7 iska bixiso bishii, xog kasta oo rabto waa ku kaydsamaysaa. sidoo kale barnaamijyada office-ka hadday noqdaan Excel, OneDrive, Word, PowerPoint iyo dhammaan waxa office ku jiro idil si free ah ayaad u isticmaalaysaa oo wax markaasi ka xumaanaya ma jiraan. sidoo kale daatada aad ku isticmaasho office-kana automatically backup ayaa ku sameynaya si fudud ay markaasi aad u isticmaali kartaa. anigu sidoo kale OneDrive-ka in muddo ah oo markaasi 3 sano ku dhawaayeen isagana isticmaalaya. xog ka badan 200 GB ayaa igu jirta. computerka waa ugu xidhan, mobilka waa ugu xidhan, automatic ayna ku backup garaya. marka adigana sidoo kale waxaan rajeynayaa inaad ka faa'iideysan doonto xog dambana aysan ka lumi doonin oo markaasi adeegani uu ka anfici doono. bal soo tijaabi barnaamijyadan kadibna isku day inaad adeegsato oo xogtaada aad ku kaydiso. waxa aan rajeynayaa inaad ku farxi doonto wax fara badan oo ka lumi lahaa ama ka qasaari lahaana aad kaga raysan doonto. waxaan rajeynayaa in muuqaalkan aad wax ka faa'iiday oo barnaamijyadani wax uun ay markaasi ku faa'iideyn doonaan, sidoo kalena asxaab aad u tiro badan insha Allah u gaari doono. aad iyo aad baad umahadsantahay. inta aynan muuqaalkan ka bixin oo aynan sii gudbin, waxa aan ku xasuusinayaa inaad subscribe saarto channelka, sidoo kale like aad saarto si dad fara badan u sii gaadho. page follow garee, sidoo kale like saar si markaasi muuqaal walba waan soo gelin aad la socoto. aad iyo aad baad umahadsantahay.